halkan ii soo fadhiso casho ugu wacan baad u samaynaysaa qolka xataa noloshii hore waad ka bedelaysaa aawa fadhiga ayaynu joognaa baad leedahay marka ninka waxaan isleeyahay labo waa ragga sameeya kelmadda la yiraahdo gogol dhaaf dumarkana waa lagu sheegaa xogaa macsida ragga sameeya in sabcaad aad ku ridooda iska soo dhigto xabata lows lama baana inaad dircishiida ka soo xidhato muxuu ahaa horta colaada ugu xun waxay ka timaadaa nolosha macaan ee dahabka keenta haddii gabadhu ay ninka dahabka ku ciriirido hadday doonto dhinaciisaba ha seexatee saan berina dumarku in la guursado iyagaa kaliifa ama laga tago jacayl xaasid waa bulshada waxyaabaha ay u badan tahay taasi waxa weeye jacayl xaasid baa la yiraahdaa in laba qof oo isjecel iscasho geeyaan bulshada qaybo ka mid inay ka xumaadaan ku diraan wax ka sheeganaydo waa ku falatay kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad naga daawanaysaan iyo xilli walba idin tahay soo dhawaada waa barnaamij gaar ah maanta barnaamijka waxaa noogu casuman dabcan Hawa Cali Kaar oo dabcan aad wada garanaysaan oo ah maxaan ku rahdaayay maamooyinta badan ka shaqeysa arrimaha qoyska iyo maxaan ku rahdaayay dhanka kale arrimaha jacaylka wala isdhihi kara Hawa waa ehel caashiq waxaan ku leeyahay caashiq dhalinyarada lagu dareemo meel dhihi jiray aan Hawa ku soo dhaweynaya marka hore ku soo dhawow maamo television Sahal Cable TV bal ugu horeyn Hawa tuma aad daawadayaasha isbaraaya ما شاء الله ودوهاي تي في جنا أد بنو دوهاي وأنا كفر حسنا حاو مركان سكين برا أنا وحنا هاي ماما كشغل سأرمها بالشدة organization وين دري اللي هذا بنو جامعة سيدا نبضين تا يوحيابها الله متك أرمها كويس أدو خوار بدن بنو قبتها بالشدة تعدية برنامجية بدن بان لا هاي ولي من نبضها ميل بدن بان كسو جولستي بدن كسو قبتي أصل كي جوران وحن لا هاي وحن هاي قبل غير بدلانة خاصيا وحن كسر شيء ذا دقمة الله سعانه يران تيجي جرو وحن كجر تشتري ونروس وقاعد تشتري حتى جرو إسكا وحن قبصان كجر شغالين تشتري بركة جدا بنا وحن وريجي حمري حكا يصير إمحان كل شيء مركا حاو وهوية ذا غير بدلان وهوية ذا نبضة وهوية ذا تعالك هدي أن نبدي تشتري تعال مترو marka bulshada oo dhan waxaan u ahay runtii hooyo role model aan Isbaaniyo waxaan jeclahay in wax badan la iga barto oo cid kasta oo aan volunteer diyaar u ah waxaan rabaa inaan gaarsiiyo casharadayda qoysas badanna waan ku badbaadiyay ilaahay amarkiisa ilaahna waa ila qabtay dabcan barnaamijku maanta wuxuu ka hadlayaa barnaamij maalmaha ka social media istaba socday oo ku saabsan صدقها iyo saameynta ay ku leedahay qoyska barnaamijkaas inuu ku qaada dhigi doona maxaan ku rahdaay wareysigeena balsoo dhawo ma sha Allah waa dhawahay aad iyo aad baan ugu dhawahay barnaamijkaas aad u qabsaday baraha bulshada waan arkay waana daawaday dad badan oo ka hadlayana waa arkay aniguna total waxaan ka shaqeeyaa barnaamij ahaan la talinta arrimaha qoyska iyo qoysku soo u dhismi lahaa soo u xasili lahaa sidoo maaragtay dhalinyarada loo bari lahaa qoys wuxuu uu yahay qoys markuu dhismayo qorta xaqiiqan waa inuu ku dhismaa diinta islaamka ma hawl yar maaha marka qoys la dhisaayo qoysna wuxuu ka bilowdaa hooyo iyo aabe wiilkuna wuxuu ka imaanayaa de hooyo buu ka imaanayaa gabadhan wiilkan macaanay malabka ka shaqeyso de wuxuu ka yimi hooyo marka aad baan nasiib darro ugu tilmaami karaa malabkii ay shaqaysay waxaan oran karaa waa malab de qof malabkii loo soo barbaariyo loo qurxiyo waa malab waa raaxo waa maxaan ku sheegaa hugaagi waa sharaftaadi inaad hooyadii nacdaa waa arin aad u adag oo dhibaato badan wax la qaadan karana ma aha runtii haweenaha waxaan qaadan karana ma aha islaanimo waxaan qaadan karana ma aha marka taa habla waxaan leeyahay laga kaaftoomo malabka ayaan ciid lagu darin marka xaleedahay hadaan wiilka aan hooyadu dhali lahayn maba yimaadeen adduunka lamana arkeen gabadhuna ma hesheen de ma hesheen waxa lagu soo barbaarinayo ee gurigiina aad uga timi gabadhu maalinta 5 jirta gashaba hooyada waxay tiraa reer bay u socotaa de wiilkii lagu soo barbaarinayo hooyada fiican dhashay ee lagu soo koriyay ee noloshaada dhan ay ku xidhnayd aad u socotay hadaa tiraahdo tii foolatay ee maxaan ku sheegaa nuutisay ee xambaartay ee waxbartay ee u qubaysay ee u labistay ee qoyska ruuxiisa dhistay qoyskan fiirin marka wiilka la dhisaayo hooyadu way guntataa wax kasto ay haysan hooyadu waxay ku bixisaa guriga wiilka marka guriga wiilka markay ku bixiso quruxdaada sharaftaada jacaylkaaga ay kaamisho de haddaad ciid iskaga shubto bal ka waran oo waxa weey noloshii macaanayd
ee aad ku nastanayso waa meeshaad ku nagaanaysa guriga reerkiina geedi baad ka soo ahayd waayo waxaad aaminsan tahay gabadh kasta inay geedi u tahay inay guri samaysato guriga aad samaysatana hooyun baa kuu haysa dee hooyadii nimcadaa ku siisay ka waran haddaadan girto وحاجات أدوات مهتم تهاي ما المدة وتسوشيال ميديا waxaa qabsaday gabdho iyo wiilal ku doodaya gabadha maxaan ku dhahday soo dohday aniga gurigeyga ma imaan karto haday imaanaysana waa in ninkaygu fasax iiga qaataa waa talabaad anigu hadii reerkaygu ama hooyaday ama familygaygu ay guriga imaanayaan ay ku noolaanayaan ninkayga fasax uga qaadan maayo arrinta maxaad ka oran lahayd waa fakar khaldan waana dad dhaqankoodii iyo islaamnimadoodiiba luminaya qofka fasaxa qaadanaya maaha in wiilka la yiraahdo hooyada ayaga fasax qaad diiniyan marka loo eego guriga waxa mas'uul ka ah aabaha wiilka ka mas'uula haduusan wiilku raali ka noqon family-ga guriga imaanaya oo aan kugu sabood garayn gurigaaga in la yimaado oo aadan ka kasban diiniyan ma keeni kartid cid isagu raali ka ahayn laakiin hadaa tiraado isagu hayga fasax qaato waxa way wada garan maayo midna shaqada meelaha dadka yaryar dambe hadda ay ka daawadaan ma aqaan social media iyo meelahaas waa dhaqan khaldan waana dhaqan aan loo baahnayn ha lagu saleeyo nolosha islaamka guurku waa wax weyn waa wax aad u qiimo badan waa qoys la dhisaya hawl yari ma waa beer la falayo waliba la rabo in wanaag lagu falo raaxo lagu falo jacayl lagu falo qofku uu soo saaro wax aad u qiimo badan oo aakhiri iyo adduunkaba wax laga faa'iidayo laakiin ma inaad dhanka khaldan ka soo gasho taasi waa khalad وحاجات waxaa jira dabcan bal arintaas ay gabdhahaasi ay dhaheen sodohday guriga ma imaan karto sidee bay u saameyn kartaa dadka jiilka dambe ee soo kacaya maxaan ku rahdayay bari ka maalin ee anaga naga dambeeya maadaama anagu aan nahay jiilka maanta jiilka naga dambeeya bal ma laga yaabaa inay aaminaan maxaan ku rahday sodohdaba ay khalad ka aaminsan horta warka xun baa dheereeya laakiin waxaan leeyahay qofka khalad uu dhacaa khalad wuxuu baahan yahay in la qabto oo la saxo khalad kan hadda waxaan fiilayay waxaan maqlay wiil baa isna yiri muxuu ahaa aniga soo dohlaan muxuu ahaa hooyo la'aan noolanaya ana hooyo la'aan gabadha hal ii raadiyo waa jiilka yar yar barnaamijyada khaldan ay kula jiraan dadka waana waxa la rabo in laga hortago waa khalad baan leenahay arinta hooyanimaha lagu saleeyo halka hadan ka dhaxgalo ninka yiri aniga hooyaday way dhigmatay maxaan ku raadayay aniga gabadha hal igu daro tinka waxaan maleynayaa inuu yahay gudoomiyaha gobolka Gaalkacyo sanyare isaga waa jiilkii dadka kan ka horeeyay hooyayaashay aabayaashay dadkii hore weeyaan isaga dhalinyaro hadda ma ahay gabdhaha kala facnahay oo ninkaas waa nin weyn baan malaynayaa maalin baa waxaan ku arkay shir san filayo aan Gaalkacyo tagno tababaray u tagnay de waxaan isleeyahay wadada khaldan inuu ka qayb qaato taasaaba khalad waa dadkii la rabay inay qabtaan khaladka haddaan maanta cimriga anigu bogaadiyo in khaladka sii wado dee taa waxaan boodan karaa insha Allah qofku iska khaldami karaa uu ka noqon karaa baan malay gudoomiyo taa looma baahnayn inuu booriyo arrin loo baahan yahay ma aad baad mahadsan tahay bal waxaad ku takhasustay haddii inta kaga soo noqono dhanka sodohda iyo maxaan ku dhahdayay khilaafka maalmaha kan baa social media la isla dhexmarayay waxaa jira gabdhaha hadda badankood say u badan yihiin gabdho badan oo diaspora ama wadamada ku koray ama wax ku bartay ayaad arkaysaa oo le maxaan ku raadayay ku xujeynaya ninka ana ka bixinaya hantida ama maalka ugu guursanayo ama arooskayga ama wixii qarash ku baxaya laakiin shuruudaha wata shuruudaha haduu ka soo baxo ninkaas way anfacay haduusan shuruudaha ka soo baxeen maxaan ku dhahdayay ma rabo marka taa maxaad dhihileed taasna waa dhaqanka reer galbeedka gabadhu haddii ay hanti haysato way dhisi kartaa nin oo jacaylkeeda way qurxsan kartaa qoysku horta wuxuu ku fiican yahay jacayl lagu dhiso gabadhu haddii iyadoo hantilaa wiil guursato ceeb ma aha oo ay hantidii wadaagaan oo iyadoo ay hantidii sidii saxda ahayd ku dhisto laakiin shuruud in lagu xidhaa dee waa dhaqamada reer galbeedka waxa weeye ninkan islaamka ah ee aad guursanayso ee ilaahay kuu baneeyey shardi xidhi kara oo odhan kara cid kale uma wareegi kartid waxaan filayaa diinta islaamka kuma jiro waayo ilaahay baa xikmadiisa wuxuu ku saleeyay inuu ninkii afar haween guursado laakiin inaan aad igu sheekaysay baa waxa igu tiri maran barnaamijka talaga turxaanbiin ka sheekaynayni anaaba afarta noqonaya bay tiri diasporana ma ahayn waxay dadka yaryar dalka ku dhashay ana ninka afarta baahiyadu leeyahay buuxinay macna afar xasana u noqonaya ninkayga marka de shardiyadu kuma xidhin macnaha waan raali gelinayaa oo wixii uu rabay oo dhan baan samaynayaa bay ahayd laakiin shardi ma aha de inaad tiraahdo war lacag baan haystaa hostel ii noqo wiilasha ruuxooda gabdhaha inay hostel yiraahdaan ma ayaga ruuxooda caruurta in la wada hayaa waa qutul daruuri marka la isjeceliyo haddaan qadadan ku karinaya ilmaha ilahay ceeb ma aha
laakiin in lagu gumaysto xagga iyadu aadaysaa markay leedahay guriga sii hay carruurta la sii joog ma meelahan yurubtii dhulkii la sheegaya la aadaya bay aadaysaa miyana gabadh soomaaliyeed oo muslimad oo diin ku dhalatay oo dhaqan leho maxay tahay jiritaan la ayna ahayn oo ninkan ayna jeclayn ay leedahay waa soo wareegayaa carruurta gabadha ilmaha xaarka iga soo biyo sii hay iyada ruuxeedu maxay tahay macnaha ka wadaa horta qof bilaadan lama ayaan xidhi kar rag iyo dumartoona raguna de waaba ka xaq jiraan oo mas'uul isagay baa inta horta rabaayad noqdaaba iska yaraanaysa xataa haddaad malka dunida adduunka bixiso inta ninku rabaayad noqonayaa horta iska yaraanaysa laakiin waxaan filayaa dhaqankaasi malaha waa reer galbeedka iyo meelaha dadka kala yimi dhaqan fiicanna maaha anigu waxaan aaminsanahay in loo wada noolaado si islaamnimo oo ninkuna xushmad buu mudan yahay gabadhuna xushmad bay mudan tahay in wax la wada qabsado oo cuntada la wada samaysto oo ilmaha la wada hayo oo la wada xamaasho oo la wada shaqo tagaa waxay ku xidhan tahay rabitaanka iyo jacaylka qofka laakiin haddii la yidhaahdo joogo waxaa qabo dee waa dhaqan inaan shaqo ku lahayn malaha ma garanayo anigu kulley mar walba ninka unbaa mudnaanta leh islaamnimada ninkaa mudnaanta leh isaguna inuu ku qiimeeyo kuu arko dee xaaskiisii oo sida ragga maaragtay aqoonta leh iyo ragga maaragtay jacaylka u saaxiibka ah gabadhiisoo fadhida wuu samayn karaa cunada ilmaha wuu soo qaban karaa wax badan wuu kuu gargaari karaa marka laga hadlayo nolosha bisil marka taa waxaan odhan karaa dee gumaysi maaha waa sabood garayn qofku qofka kale raali gelinayo laakiin tan xoolahaygaan ku bixinaya ii xidhno wallahi taa anigu garan maayo mana soo marin kamana tala bixin karo taa okay aad baad u mahadsan tahay xaawa dabcan waxaad ku takhasustay arrimaha jacaylka iyo qoyska familiga dhankaasaad ku takhasustay waxaan doonayaa hal su'aal inaan ku weydiiyo su'aashaas oo ah marka uu ninku ama wiilku uu gabadha u soo guursado ilaa marka horeba ay banaanka la joogaanba xabiib macaan taa soo guraaya markay si soo guursadaan oo guriga u yimaadaan maxay isku noqdaan jin iyo xildiid taas waa khalad rag buu leeyahay waana arrinta qoysasku ku burburaan ninku marka hore waa run waxaa la isku jacayl iyo waxaa jira kalgacayl dhalinyaradu inta badan waxaa iskaga khaldan jacaylkii iyo kalgacaylkii waxyaabaha burburka keenana waxa weeye kalgacaylku qof baad iska rabaysaa xaggana mid baa ugu qarsoon oo jeegadiisa taagan oo markuu tan qoyskan dhisaayo wuxuu leeyahay gadaal meel u noqdo oo isaga ruuxiisu maaragtay waa nolol khiyaamada ka mid ah marka qoysaska burbura maaha jacayl waxay ku dhismaan kalgacayl bay ku dhismaan gurigii baa gabadhi waxaa lagu soo xirogelinayaa waa ku jeclahay markadaa gurigii buu keenayaa siday kursi tahay ama miis tahay halkii la rabay inta ilaahay awlaad keenayo inuu iyada ka farxiyo oo kaxeeyo oo soo cashaysiiyo oo la baashaalo oo maxaan ku sheegaa wehelkeedii uu noqdo ayuu maalintaa uu guursado wuxuu dhimayaa wixii faraha badnaa uu sheegaya wuxuuna casho geynayaa mid kale oo aan diinta islaamka xataa u ogolayn oo la soo baashaalaya meelaha soo wareejinaya marka halkaa xoogaa khaayanima ku jirta waa qolo dadku waa labo isla nool iyo wada noole marka qoladan isla noolayaashu semberi meelaha burburku ka yimaado wey laakiin dadka wada noolahay waa nolosha dhabtaa ee dadku u badan yahay ee lagu salaysan yahay ee lagu degan yahay taasi waa jacayl laakiin tan ah aan isla noolaano iyo maaragtay xoogaa khiyaarigu ku jiro taasaa markaa keenta dhibaatada wiilasha keena waa nooca markaa wiilashaas in aad loo ogaado weye marka waxaa leedahay wiilasha khiyaama oo khiyaamada ka dambeeya mise gabdhaha ka dambeeya hadee wiilkiisoo ka laba gabdhood tan markuu soo guurso ka soo qaad 3 bilood 4 bilood buu la sheekaysanaya inta hadda xitaa telefoonka ka qaban weydo dhag buu iska siinaya maalinta uu meherka ku xubsado oo xereeyo oo guri geeyo ayaa ugu dambayso mid kale u baashaalinaya muxuu ahaa meelaha casho ka soo siinaya marka khiyaanimadu waxay ku jirtaa halka marka xagga xogaagaas waa ka yimaadaa ninka aan sida dhabta ugu xidhnayn muxuu ahaa dabcan waxaad arkaysaa maxaan ku yiraahdaa ninku ama gabadha iyo ninkeedu hadday israacaan dabcan la arko gabadhii oo wiilkii uu wado casho geynayo ama dhowr habeen la arko iyagoo isla socodsin waxa la oranayaa war adiga kaalin ma doqon baa tahay maxaa tan ku daba dhigay maxaa u wadaa taas maxaa la dhihi karaa jacayl xaasid waana bulshada waxyaabaha ay u badan tahay taasi waxa weeye jacayl xaasid baa la yiraahdaa in laba qof oo isjecel is casho geeyaan bulshada qaybo ka mid inay ka xumaadaan ku diraan wax ka sheeganaydo waa ku falatay taas waxay ka timaadaa bulshada waan sembir wax dhaca marka waxa la yiraahdaa jacayl xaasid ah waa hagaag dabcan waxaad arkaysaa inta badan ama meelaha goobaha lagu caweeyo ama waqtiyada lagu qaato waxaad arkaysaa nin xaaskiisii intuu guriga kaga yimi iyo caruurtiisii habeen walba habeenba gabadh wada oo yacnihii casho geynaayo casho wada caawa miduu wada habeen dambena midbuu wada gabadhiisina guriga bay joogtaa iyo caruurtiisa wax laga yaabaaba inaysanba nolol fiican aysan ku nool ama uusan biil fiicanba uusan siin ninkaas dulmi ma kaga iman karaa maxaan ku rahdaa xaaskiisa
dee waaba dulmiye kaasba ku imaan kara meeta waaba ku jiraa soo adiga arkaayo inuu dulmiilahayahay oo ku jiro hawshii ku jiro maxaa diidaya inuu tiisoo wadwado hadday doonto waaba wala cunadan ma karin karto isagay u baahan tahay waxay rabtaa inay weheshato soo kan dulmiilaha ay gabdhihiiba dulmiya ay isku diraya burburka keenaya ragga shabeelnaagoodka ay ku waxyaabaha sameeya weeyaan raggaas markaas see looga hortagi karaa arrintaa waxaa laga hortagi karaa in lagu baraarugsanaado oo waxaa weeye diiniyan iyo islaamnimo iyo dhaqanba guri marka la dhisayo si dhaba in loo dhiso ee aan la iskhiyaamin gabdhaha ruuxoodu qayb bay ka qaataan in guryuhu burburaan gabadha waxaa laga rabaa ninkaas waxbaa ka dhiman shabeelnaagoodka tegey marka inay bartaan habluhu waxa dhiman oo iyaga ruuxoodu ay sameeyaan bal maxaa dhiman inuu gabadh kale adigoo aan xiisa dhicin oo daaba dhalin oo aroosa horta waxaan arkaa dhaliil weyn oo gabadha ka timi anigu anoo aroosa ama daa dhalay ama laba dhalay hadduu ninkayga meelaha wareego waxaan u arkaa kolay dhaliil gabdhaha ka timi dhaliishaasina waxaa weeye xoogaa jajabnaanta gabdhaha ayaa wax ka dhiman yihiin raggu waxa la rabeeya waxa uu quruxda badan weeye una dhagaha nugul waxaa weeye ninku haddii uu baahiyaha uu leeyahay iyo rabitaanada uu leeyahay adigu aad ku fargarayso oo barto wax badan baad gaadhaysaa laakiin haddaad si kale u isticmaasho siyaabaha hadda gabdhuhu ay isticmaalaan dee meelisaas iska wareegaya marba mid kale lu goynaya waxa weeye wuxuu ku jirayaa barnaamijkiisa ciyaarta halkaa ka dhaqaaqayo طبعا هبلو waxay طبعا wiilashu waxay aaminsan yihiin ama ay iska dhacdhiciyaan inta badan inay dhahaan war adiga mudaqon baa tahay maxaan ku rahdayay naagta tan maxaa ku dhuldhigay maxaad ula hadlaysaa haween يعني inay isdhahaan hadii aad u jajabnaatid ama aad u naxariisatid maxaan ku rahdayay ay bikhaladka aaminsan yihiin taa maxaa dhiilay te waa qoladan kuri waxa la yiraahdaa isla noole macnaha nolol dhaba maaha maxaynu dhihi karnaa inuu barto islaamnimada iyo sharafta iyo jacaylka hadda markaan ka soo qaado wiil baa wuxuu ila ahaa dadka maaragtay sheeko wadaagta ah dadku hadda yeeseen bari marka meheradaha iyo xafiisyada la joogo group baa dadku sheeko wadaagaya waxyaabaha aan arkay waxa kamid ah maantada ruuxda qaar baan ka doodaynay markaan joogay meel halkaana nin baan waxaan arkay markuu xaaskiisa wacaya kamid ah groupka yaga erayada uu isticmaal aad bay qurux badan wuxuu yiraahdaa macaanay qaaliyay sharafay meel kale joogtaa gabadhiisu been ku sheegi maayo sidaan oo kale aan wada fadhinaa telefoon baa ku soo dhacaya ma kacayo wuxuu leeyahay abaayo qaali sharaf badan maxaa ilmaha wax ka khaldameen maxaa u baahan tahay maxaan kuu qabtaa halka isagoo fadhiya bay waxay noqonaysaa maqsuud bulshaan la fadhiya macaan badan haddii aad wax ka hadlayso inoo gaara aan ku soo koolgareeyo haddii ilmaha ka hadlayso wuxuu yidhaa sharafey hebel waxaad tiraahdaa cabdillaahi raamusi qaaliyay waxaa si maaragtay qofkii uu helo runtii dadka waan ka jeclahay ninka been kuu sheegi maayo nin baa marka maanta igala dooda wuxuu see odhan karaa oo ma afkaa ku go'aya haddaad qaali iyo sharafey iyo macaane iyo gabdhuhu waxay u baahan yihiin koolin ninkuna wuxuu u baahan yahay koolin haddaad ninkaaga tiraahdo hadal macaan kula hadasho oo aad maaragtay qalbigiisa raali geliso isaga aad maaragtay siiso rabitaan aad muujiso ma soo moogid inuusan kaa tagayn oo isna eray macaan ku odhanayo wanaga dhaqayladaada iyo su'aal qabrida iyo haddaad waxaa shubtana dee qofku wuu iska tegaya marka dhaqanka aynu ku dhaqanaaba adagba وحاجة ما حاول مدام أي رجي دمركي أي بدنا أي بربركو بدني هاي قيسسكي أنت كل تجلس أي بدنت هاي maxaa la oran karaa dumarka khaas ahaan maxaa looga baahan yahay inay ninkooda ay ku farxad geliyaan ama seegooda okay wax badan bay ku raali gelin kartaa waxaan idin kala qaaday inuu yahay maxaan kuu sheegaa qoysaskii hore farxadda ee ku wada noolaa maaragtay rabitaanka ee hore maaha dadka burburku ka yimaado dadkaynu wuxuu sheegaynaa maaha waa da'yarta dadkaynu wuxuu sheegaynaa waxaa gabadha laga rabaa inay ninkeeda raali geliso maaha inay noqonayso adoon hostela haddii ay ninka raali geliso ninku wuxuu leeyahay dadku wuxuu leeyahay laba gole marka waxaa la rabaa hal golaa wuxuu jiraa oo aad u qaaliya in muxuu ahaa gabdhuhu ay bartaan kaa runtii kama sheego miidiyaha laakiin waxaa weeye si kale talaya tusaale si kale layla soo xidhiidhaa ninku waxaa weeye marka waxaa weeye la soo jeedinayo ninka horta waxaa laydinka rabaa inaad barataan gabdhihiina yaryar kow ninka iyo reerkiisa iyo faamiligiisa iyo meeshuu ka yimi horta waa inaad rabtaa nin suka ah waa geed gurma go'ana haddaad geed gurma go'ana hoos fadhiisato har intee leeg baad ka helisa waxba ka helmaysa waxaad markaad future dhisayso ku xisaabtamaysaa ilmahaagu inuu future helo inuu ayeeyo helo inuu awoowe helo inuu adeer helo haddaad family ballaaran carruurtaada u samayso waad xanuunsan kartaa ninku wuu kaa xanuunsan karaa wuu dhiman karaa adigu ka feker ilmahaagu inuu helo
meel uu ku nasto adduunkan maanta inta yar riwaayada waa ka diiranaya iyo waa ka tagayaa hablu taa iska daayaan awalu ninkooda ha raali geliyaan allaha abuurtay markay raali geliso ninkada laga rabaa inay raali geliso ninku waxyaabaha lagu janno tagu kamid yahay ogaada jannadu waxay ku xiran tahay ninka hadduusan ninku raali ka noqon ilaahay raali ka noqon maayo ninku hadduu ku yiraahdo hooyada ha u tagin ma ha ceeb adigu sababay inuu hooyada jeclaado aabaha jeclaado walaasha jeclaado saaxiibada jeclaado cid kasto adigu ka socota ha ku khasbin oo ha ku ulayn laakiin waxa weeye isaga bar inuu dadkaaga jeclaado dadkiisana jeclo hooyadii jeclo aabihii jeclo walaalkii jeclo familieskaas waa lagu faanaa xataa waa carruurta loogu heesi jiray gabadhu markay reerka guursato way ku faani jirtay qoyska ay guursatay wiilkeedu wuxuu noqon doono laakiin kuwa hadda waxoogaa waa ka diiranaya mid baa ii balansan iyo laba la isku dul shukaansaday dhalinyarada badan hadda way leedahay guurkuna wuxuu rismigiisu yahay in sida dhabta loo fikiro gabdhuhuna ragooda ha qiimeeyaan maxaan ku shaqeeyaa dhaqaalaha ka saacidaan oo dhaqaala burbur ka daayaan oo waxyaabaha isticmaalayaan faraha badan ka daayaan dhaga adeega ha ka daayaan ninkii guriga jooga gabadhu inay banaanka ka sheekayso ha joojiso rag wuxuu u baahan yahay waxyaabo fara badan oo gurigiisa in la dhigo inuu ku soo noqnoqdo raggu ma aha gabdhu waxay yiraahdaan hadii ninku laba goor wax weydiiyo waa qorqode kaasi waxa weeye waa hunguri badan yahay no way ma aha ninku waa libaax waxaan maqlay nin baa gabadh baa waxay ku tiri nin waxaan rabaa inaad ninka ii sixirto markaasuu yiri orod libaax shaarbadi la kaala libaax waa bahalka adduunka ugu mucjisada badan waxay keentay inay libaax shaarbadis keento haweenka Soomaaliyeed libaax shaarbada ka soo gooyay ma ninka iyagu ay haday muxuu ahaa dahabka xataa u diidaan naftaa ka dhacaysa madaxweyne kasta uu yahay marka ninaad adigu dahabkii u hayso oo gabigaagaba adiga gacantaada ku jira de sabab aad muxuu ahaayeen aad raali garin weydaan uma garanayo marka rag wuxuu ka rabaa dahabka in lagu raali geliyo nolosha lagu raali geliyo la raali geliyo la isu taago la marxabeeyo isaga ku noqonaya marka saaxiibkaagii koobaad iyo naftaadii koobaad cid kastana isaga ka xiga horta inta barta marka hore ka rumeeyo guud aad baad mahadsantahay wahagaag su'aashayda kale hadaan soo noqdo gabadh ayaa tiri ninkaagu hadii uu ku qasbo waa kufsi arinta maxaad ka oranaydaa taasi waa dulinimo wax laga sheekeeyaa maxaa marka hore kufsi keenaya sababtu ii kufsanay xagee ka imaanaysa horta gurigayga markaan ka imi gabdhuhu markay gurigooda ka soo tagayaan maalinta ay 15 gaadhaba waxay teergaraynaysaa inay reerkan geedi ka tahay horta gabadhu xagee ku nagaataa su'aasha in la isweydiiyaa meesha ku jirta yay tahay gabadhi ilaa reerkan waa ku waxay abru yiraahdaan naabaraad iga tagaysa gabadhu reerkan waa ku geedi fiiriya walaalkeed waxayna u quurin oo aabaheedu quurin oo hooyadeedu quurin oo cid kale u quurin bayna kala qaybsatay marka wixii aad la qaybsatay inaad tiraahdo wuu kufsaday de anigu ma garanayo taa waxaan ku idhi fiiriya nin iyo gabadh baa isguursaday maxay ka soo carartay gabadhaas reerkooda markay joogtay maxay raadinaysaa inay ninka nolosha la qaybsato walaalkeed markuu soo socdo waxay xidhanaysaa muxuu ahaa wax allaala waxay doonto ma fahantay ninka haddaad doonto waxa la idib cimaamada waxa soo socota muxuu ahaa hebel baa soo socda gabadhu waxay tahay ninka maradiisa ninkuna waa gabadha maradeeda waa nolosha ugu qaalisan bil aadan wadaaga labadan qof ka dhaxaysa cid kale ay ka dhaxaysa haday noqoto dhaqaale ninku meel dunia duu soo helo xusiya gabadhiisa hooyadii waxa laga yaabaa haduu maanta $5,000 soo helo ninka ugu fiican inuu $500 hooyadii siiyo $4,500 wuxuu u dhiibayaa gabadha okay haday hal mar leeyihiin iyaga wada xidhanaya caruurta banaanka loo saaray albaabka la soo xidhanay hatta caruurtooda uma quudaan inay la seexato way loo xumaynayaa marka labadan qof waaba isla hal qof yaa أنا ما أعرف تاسو ما قرنا يكون في ميلو كي ما قرن كرو بلا واحد كينا ما قان قدني كاس سيدا خلتني ما ذاك وحقاق ما محاوى بل طبعا مركا أي قيسكو أما يسخبتان أما يسخلافان أما يسكو دعان أو مش خلاف ويماضو ما حيت هاي سببتها أي قبردو أنت يقول كي ورددا أي فاميلي أي دكناية أنت وتقطنينك أي يقولك عيالك وتقطع أما ميلك لا بأي سحدا ما قولك لجورك كمل waxyaabaha inaga dhiman weeyaan oo nolosha ka dhiman haweenka Soomaaliyeedna way sameeyaan waayo waxay aaminsan tahay fiiriya labada qofba waa sameeyaan horta colaada ugu xun waxay ka timaadaa nolosha macaan ee dahabka keenta hadii gabadhu ay ninka dahabka ku ciriirido haday doonto dhinaciisa ba seexatay oo ay dahabka habeenka ka sii jeensato waxa way boodada uu boodo wuxuu ka dhacayaa meel uusan warigii ka soo noqon haweenku taaha ogaadaan waxa la mid ah gabadhu markay gurigan ka baxayso iyada isbaylihisay
seenberina dumarku in la guursado iyaga kalifa ama laga tago waayo waxyaabihii ay contracta ku galeen ay wada lahaayeen isaga iska le ninka kan nimcadan adaa siiyay ilaahay baa u baneeyay contract baad siis nimcadii uu isagu isku lahaa de inaad kaga argoosato lama rabe waxa la rabaa wixii aad ku tabanaysay inaad isaga ku macaaniso kaga qaado marka inaad humbul tiraado buul seexato waxa ka wanaagsan inaad isaga la garnaqsato qolka fadhiga geyso raali geliso casho fiican u samaysid tiraad caaw waxaynu leenahay labadeenu waa garnaqsanaynaa saaxiibo banaanka ha u bixin ila joog waabad isku dhacdeen ha bixin xaaj halkan ii soo fadhiso cashada casho ugu wacan baad u samaynaysaa qolka xataa noloshii hore waad ka bedelaysaa caawa fadhiga ayaynu joognaa baad leedahay anaana ku ii macsuunta caruuriyay ku maqlin cid kula deganiyay ku maqlin bila aadan kale yu ku ogaan sida ugu maqalsan oo ugu caqlisan horta bal u garnaqsada markaad u garnaqsato oo si macaan ugu garnaqsato in sabcaad aad ku ridooda iska soo dhigto xabata lows lama baana inaad dircishiida ka soo xidhato muxuu ahaa qolkii aad canjeerada ku karinaysay horta marka hore waa in naftaadu ay tahay muxuu ahaa inaad maanta aroos tahay semberi hablaha Soomaaliyeed waxa weeye iyaga ayaa isbahdila gabadhaas oo qurux badan oo maasha Allahaysan oo aroos u eg ba halka xaajiga soo fadhiisinaysa cashada casho ugu fiican baad siinaysaa afkaad ugu guraysaa waad la cashaynaysaa waad ka qoslinaysaa waad dhukanaysaa dhinacyadaad kaga beesa waxa la caawa xaaji garteenu halkaas ay taala halkaas marka maxaaniga buulka ku geynaayo taasaaba taaleemad kaga argoosat waxagaag xaawo hadan ku soo jeesto maxay tahay ay gabadhi ama 5 cunug ama 6 cunug ama 4 cunug ama 3 cunug ba ay dhasho ay nimanku inta uga tagaan ay inta mid kala guursadaan iyadan gabadha tambaanay nolosheeda aysan gaarin maxay tahay sababtaasi maxay tahay sababta keeni karta waxa keena dhaqamo laba sababood baan oran karaa hadaan anigu baaritaan ku sameeyay bay keenta gabadha sida lagu sameeynayo saluug baa jira sababta saluugu yahayna waxa laga yaabaa daryeelka nololeed ee gurigu uu sababa oo ninkii hadii uu ma aragtay noloshiisa luugo baahida seenbarina ninku caruuro badan baa la dhalay ma eego waxa jira xataa rag sida khaldan u fikiro oo iyagu xaaskooda guriga jooga meelahaas soo gargaraaco oo gabdhaha soo khaldan nolol khaldan oo ilaahay uusan raali ka ahayn xitaa sameeya marka ninka waxaan isleeyahay labo waa ragga sameeya kelmadda la yiraahdo gogol dhaaf dumarkana waa lagu sheegaa xogaa macsida ragga sameeya way sameeyaan inay gabadha dulmiyaan mid kalena way sameeyaanoo waxa laga yaabaa dabaaxidiisi bay tani dabooli weydi oo kuwayna ku filnayn baa ahaan iyo nolol ahaan baahida cunna laga ma hadlaayo guriga sariirtan raali gelin badan ka jirin marka inuu tan dayaco de ma xasuusanayo waxa laga yaabaa in 10 caruur leh inuu guursado gabadh caruurteeda kortay oo marwaaho meel iska degan oo guri udgoon haysata oo 20 kiiba ilaa oo naftiisi lagu raali geliyo meeshii uu joogay marka kuwaas waxay ka baxayaan saaxada marka ninku ma eego ilmahan iyo waxan ma eego isaga baahidiisa labadiisa gole ma raali garoobeen uma helay wuxuu doonayay inta haduu helo de waxa weeye jaw waa ka socday gabdhaha Soomaaliyeedna ma yaqaanaan ma la isdhihi karaa taa dumarka ayaa sabab ah maadaama marka ay dumarku ay xoogaa ay iska yar waaweynaadaan ciyaalkooduna ay u karan ay ku leeyihiin naanin buu ma baahan ama waxay ku leeyihiin ba marka uu ninkii guriga uu yimaado halkii ka soo dhaweyn lahaayeen ama ay si fiican u soo dhaweyn lahaayeen ciyaalka xooranay noor aabaha biyoosho ama nooradu aabaha casho u geey ama war aabihi noorda u gogla bal arintaas ee looga hortay karaa maxaa sax looga qabo ha sababta dumarka iska leh waa meelahan ku sheegayo aan kula hadee ninka waxba gaabka ka dhima baa wuxuu yahay de gurigiisa raali gelin kama helin hadayba iska tagtay ama qaad ha iibiso macaan ha iibiso ama meel kale ha ka soo sheekayso oo sariirtu saaka ka cayo durtaalo muxuu ahaayeen macawistiisi uu ku soo noqdo duhurkii oo markuu siyaada saxo isagu iska hururgufto iyaduna haday doonto ay ka soo sheekaynayso dukaamada de waa dad ku dhacaya ninka noorad ilmaha qadada uge odayga qadada uge naabihin ma jooga kuwa kale oo caruurta kale ninka caruurta naagta caruurta iyada caruurta nin gursadana waxay adeer maxaa faadama ma tagto guriga faadama ma jiiftay mise waa tagtay ninka magaci xataa waa laga bedela waa sababaha dumarku leeyahay haday dumarku ogaan lahaayeen qiimaha ninkan waxa weeye ma aadeen meel kale hadduu xataa la guursanayo rag waxa jira intay la guursadaan oo marka caruurta markay korto nolol kale raasada ku soo noqda gabadhii ugu horeysay oo marnaba aan seerayn marka saluugu wuxuu ka yimaadaa hablaha Soomaaliyeed sababtu uga yimaada maalinta shan dhasho waxay soo xidhanaysaa dircshiida meelahaas ay fadhiisanaysaa guriga hortiisa wax ay sameynayso movement oo nafteedii iyo gurigeedii ay u sameynayso ninka waxay u aragtaaba de shay ay iska leedahay oo hadhowto go'a yar ay sariirta markay tagto hoganayso looma baahna waxa la rabaa ilaa maalinta la soo arooso ilaa iyo maalinta ay heer gaadho inta ilaahay ku simaayo
inay ninka raali geliso oo ka fikirto oo maxaan kuu sheegaa iyadu nolol waxaan ku noolaato cadarkeeda iyo unsigeeda iyo dadnimadeeda iyo jamjamteedu taa ninkeeda diyaar u ahaato laakiin haddaad meelaha ka sheekayso waa hawd waa kaa tagay ninkaas وهجاج أن حوا أن طبعا بالجودو مركي أي جورج ده شوكتو من سمركي ماله صعوته يا راسه صعوته مركي راسه صعوته حلاقيها وين كان قرش بدن أي كقاعدة أي ما أنت يسوي يبسط درك حرنا يسوي عروس كم حرنا يسوي أن درع حرنا يسوي محن ميك اب كي مرسان يسوي إعلان كي مرسان يسوي بل سمركي أي جورج ده أي شوكتو نينك ده أي لا شوكتو أي سن سماينتها أي درع أي كذا كل شرطان عطوا أي كسماين سنة أي برزة كتقطع أي كسي حتى بل أهين تنسي وحلاقي قبل كرا wacyigelin fara badan way sameeyaan habluhu anigu waa u sheegay gurigu wuxuu leeyahay iyo ninku waxay leeyihiin dhar gaara suuqaasina wuxuu leeyahay dhar gaara hablaha Soomaaliyeedna waa u sheegay dharka u quruxda badan ee ugu muuqaalka quruxda badan ee ugu fiican waxa iskala gogoshiyo guriga ninkaagu markuu kula joogo ku soo hashi tago waa inaad u labisataa adigoo hadda galaya arooskii iyo sacabkii lagu soo tumaay adigu ninkan raali gali عرف كرالي قري لبس كرالي قري ولا بدرك قارب تشعليه نك وين تقانا نك أقول درك تشعليه وين تقانا نك أقول عذر كتشعليه وين تقانا سيستم كشيء كذا نك أقول تشعليه لبعتها هبلا صومالية هي ستا ما بيقانان بقى نك روح يقانا شيء لي آلة دوستان كل شيء نكون قبل روح يقانا كرتون ولا يمرسيال مركا إسفهن الآن بهالكاكترت وحاجات سيدة مركا لوجو هرتكرها ما دام قبليه ناي مسيهن مركا سوق الله سعدا أما راس الله سعدا أما مال حفلة الله سعدا يوم بلا لبستا مركا أي جورجو تشوغان aysan boonqoon in la labisto ama ninkaaga in la isku qorxiyo taasee wax looga qaban karaa maxaad kula talinayaa waxaan kula talin lahaa habluhu hadda dadku waxba bartay jaahil maaha waa inay bartaan habluhu maxaan kuu sheegaa nolosha wanaagsan iyo guriga wanaagsan iyo sirta noloshu waxyaabo qarsoon weeye marka gabdhaha waxaa laga rabaa sirta nolosha inay bartaan guriga xataa guriga wuxuu leeyahay noocyo loo sameeyo oo xataa saaka markuu ka baxay oo uu ka tagay iyo maanta markuu soo galo waa in system guriga kala bedelaya iska daabilaya wax la gaaro marka gabdhuhu waxay u baahan yihiin wacyigelin sirta nolosha in la baro waxaana ugu baaqayaa inay bartaan sirta nolosha waa wax ka gaara miidiyana aan la marin qoyskuna uusan nolosha burburin gabadha barata nolosha qoyskeedu ma burburo waxay noqotaa hooyada dhabta ah marka horta haweenku laba qodob baan ugu baaqayaa labada qodob haday fuliyaan nolosha qoysasku way hagaagayaan gabadhu waa inay ninkeeda raali gelisaa raali gelisaa allahi abuurteen raali gelisaa waa inay cunno ku raali gelisaa cunnada waxay u yaqaanaan baris iyo baasto no rag cunno gaaray leeyihiin caraf waa inay ku raali gelisaa raggu hadduu meel udgoonna helo dhaganugay la helo hurdo wacanna helo meel lama aado marka waxaan leeyahay waa inaad barataan nolosha ragga lagu soo dhaweynaayo maasantahay hagaag daawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabadii iyo guntii waxaan doonayaa hal su'aal ah oo ku saabsan xaawo inaan ku soo gabagabeeyo aad baad mahadsantahay horta mama xaawo bal dad badan dadka social media ama meelaha kale khalad bika aaminsan yihiin markay arkaan qofkii ka hadlaya ama romantic ama jacayl ama qoyska nolosha qoyska ee dhabta ah dadka waxyaabaha xaqiiqada ee dhabta ah waxaad moodaa inaysan ogoleen in laga hadlo bal dadka khaladka aaminsan adigaaga hadda ka sheekeynaya nolosha dhabta ah ama rasmiga ah maxaad leedahay khaladka ka aaminsan حقيقة لو نقد قف كستو خلد أبسني وحكسو دعايا حقيقة أنت قف كحش هذا قف كدي قف مرة دان لقى خلده ورنا لش دبته معان هلا مرو وخلا يأمنوا وخلا يستعلا هذا أولاد عيل بحد عميشة كصوب حس عرور تنباس يا عيس اللي بكبضن وحكينا يا موقت كالعيل أنتن كالعيل كيتعيل كوين لك السارة قبلوه نوين يبرتان لش دبته ولاش نوين يبرتان وحوي لا بدقف أنت يسامنان wiilashuna hanaga joojiyeen gabdhaha isku dhisayaan maxaa weeye midna cashada u qaadayeen midna guriga kaga tagayaan taasaan ku soo gabagabeynaya wiilasha waxaan leeyahay gabdhaha hal raali geliyo guriga hal lagu raali geliyo gabdhahana waxaan leeyahay hal dhaga nuglaado diintana hal lagu saleeyo maadaama uu jannadii galay oo lagu leeyahay ninkaagaad ku janno tagaysaa dee gabadha muslimadda anu ka hadli maayo gabadh maafiya gabadha muslimadda ay jannadeeda ha u shaqaysato adduunya waa laga tegaya haddii lagu yidhi jannaabad gelaysaa maxaad ku diidaysa waa janno ninku marka jannadu waa waalidkii iyo ninkina wuxuu leeyahay hadaan xistaa uusan ku fasixin aabaha aadimays abaawarka uu leeyahay adaabbaad galaysa hadaabtaan iska ilaalino jannadeena inta haysata jannada waa inaad intiina yareer soo socotaana jannada fala beerta jannada fasha guurkana ha lagu sareeyo inuu yahay janno inuu yahay caafimaad inuu yahay malab inuu yahay nimco inuu yahay geed hadweyn gurma go'aanka ha la iska ilaaliyo macsidana la iska ilaaliyo ilaana raali ha inaga noqdo wixii aynu dhaafnay nafsha shaydaan bay ka ahaatay wixii aynu saxnayna insha Allah Allah idinku anfaco